iyadoo ay tahay wax kasta naadir haddana waxay indhaha ugu qabanayaan marba marka ka sii dambaysa wax la yaab leh. Warbixin lagu daabacay saaka wargeyska Daily Mail qaybta caafimaadka ayaa noqotay mid soo jiidasho leh maadaama la helay labada lamaane ee dunida ugu buuran ama ugu caylan. Labada lamaane waxaa la kala yiraahdaa Naomi Anderson iyo Trout Sweet waxay xaaladan ku noolaayeen muddo aad u dheer. sida ay dhaqaatiirtu sheegeen isku dar miisaanka jirkooda waxaa lagu qiyaasay ilaa 200 lbs oo u dhiganta 907.185 kilogram. hadda waxa ay ku nool yihiin guri qaas ah. labadooduba waxay u dhaqmaan si qeyr caadi ah. waxay cunaan cunada dadka kale, waxay xirtaan labiska nooca ay doonaan, waxay u socdaan si la mid ah si dadka kale. sawiro laga soo qaaday oo lagu baahiyay Instagram-ka ayaa muujinaya habka ay u nool yihiin labada lamaane. waxa ay tani tahay wax aan dad badan rumaysaneen. dhaqaatiirta ayaa ku tilmaamay habka noloshan inay tahay mid u dhow dhimasho, waxaana hadda lagu cadaadinayaa inay sameeyaan jirdhis weyn si ay ugu suurto gasho nolosha caadiga ah.